السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله. دعوة شرفت له كسر هذا أرق ضمير. markuu ilaahay noo soo sheekeeyay qisadii nabi nuux ayuu yiri kadib waxaan yeelnay gadaashood jiil kale waxaan ka soo dhax saarnay rasuul la abtirsada rasuulkaasna waa nabi huud jiilkaas nabi nuux ka dambeeyay kadib ayaa ilaahay wuxuu yiri kadibna waxaan yeelnay gadaashood jiilal kale jiilashaas kale waxay ka bilaadaan qoomka thamuud qoomka ibraahim qoomka luut iyo asxaabu madyan qoomka shucayb sidaan soo sheegnayna markuu ilaahay halaagay asxaabu madyan ayuu yiri fogaansho iyo halaaga u sugnaado reer madyan sidoo u sugnaaday ba halaagay fogaansho reer thamuud inta u dhaxaysa labadoodana ayaa ah jiilashii yimid nabi huud kadib jiilashan markuu ilaahay soo hadlay oo nabi nuux iyo jiilkii ka dambeeyay nabi huud iyo jiilashii ka dambeeyeen oo isku xigeen ayuu ilaahay yiri kadib waxaan soo dirnay rasuul israacraacsan mar walba ummad u timaado rasuul ay beeniyaan waa la halaagaya waan israacraacinay waxaana ka yeelnay taariikh laga sheekeeyo macnaha ummad walba markuu yimaado rasuul la abtirsado diinta kuwaaniya ay beeniyaan ayaa la halaagayay kadib ummadda xigta ayaa loo soo diray rasuul iyagana markay beeniyaan waa la halaagayay sidaas ay ku socotay muddo aad u fara badan oo ilaahay kaliya og yahay muddadaasi ummadahaasi rasuushaas israacraacsan kadib ayaa ilaahay wuxuu yiri kadib ayaan soo dirnay muuse iyo walaalkiisa هارون معناها موسى يا هارون وحال صادري كدib umadii israacraacsanaa oo ilaahay halaagay uusan sheegin magacyadooda ilan ilaahay ayaa wuxuu yiri waxaan kaaga sheekeynay rasuusha qaar ka mid ah rasuushana kaama sheekeenin muusan ilaahay ayuu la hadlay macnaha muuse wuxuu yimid umadii ilaahay ka sheekeeyay iyo umadaha ilaahay ka sheekeenin kadib waxaan soo sheegnay qoomka shucayb inay u dhawaayeen qoomka luut waxay isku xilli ahaayeen nabi ibraahim halka nabi muuse uu ku abtirsado qoomka bani israa'iil reer bani israa'iilna waxay ku abtirsadaan ubadka wiilasha nabi yacquub waxaa dhalay nabi isxaaqna waxaa dhalay ibraahim sidaas darteeda muddada u dhaxaysay nabi shucayb iyo nabi muuse aad ayay u badneed ilaahayna markuu ka soo hadlay qoomka nuux iyo caad iyo thamuud iyo asxaabu rasi ayuu wuxuu yiri waxa u dhaxaysay qarniyo jiilal fara badan ummadii ka horeeyay nabi muusena waxa loo halaagay si daran balse nabi muuse kadib ayaa ilaahay jideeyay jihaad halaaga bedelkiisa xilliga nabi muusena muusan soo degin halaagii lagu halaagi jiray ummadii ka horeeyeen xataa fircoon qudhiisa asiga ayaa aaday goobta halaaga ee badda sidaan ka hadli doonno hadduu ilaahay ogolaado marka intuusan la hadlin ilaahay nabi muuse uusan dhalanin nabi muuse ayaa ilaahay soo halaagay ummada uu ka sheekeeyay iyo ummada uusan ka sheekeenin balse ilaahay wuxuu xusay qaar ka mid ah magacyada rasuul uu ilaahay uusan halaagin qoomkooda iyo rasuul uu ilaahay halaagay qoomkooda balse uusan sheegin magacyadooda waana ka hadli doonaa labada dhinacba haddaan ku bilaabno qaar ka mid ah rasuushu ilaahay uusan sheegin magacyadooda waxaa ka mid ah laba rasuul oo ilaahay u soo diray magaalo aysan garanaynin cidma ilaahay mooye dadka qaar waxay ku tilmaamaan magaalooyin qaar balse caddeen uma hayaan ilaahayna wuxuu u soo diri jiray rasuul walba magaalo uma soo diri jirin tuulo wuxuuna noo sheegay magaalooyinka qaarkood qaar ka mid ahna nooma sheegin labada rasuul ilaahay u soo diray magaaladan ayaa ugu yeereen dadkoodii tawxiidka inay qaataan wayna ku waaniyeen inay aqbalaan diinta ilaahay balse reerkaani magaalada ayaa beeniyey rasuushii labada ahaa ee loo soo diray ilaahay ayaa ku xoojiyey rasuul saddexaad sidaas ayay ku noqdeen saddexdii rasuul ayaa magaaladii dadkii degnaa ku yiri waxaanu nahay rasuulo ilaahay soo diray reerka magaalada ayaa ku jawaabeen waxay tihiin qura dad anaga oo kala ah ilaahay wax idinkuma soo dejinin waad ku been abuuranaysaan saddexdii rasuul ayaa dhaheen ilaahay wuu ogyahay inaan nahay rasuulo la soo diray waxaanu waajib nagu ah qura inaan diinta idin gaarsiino reerkii magaalada ayaa ku dhaheen waan idin baasaysanay haddaydan ka harin waxaad nagu wadaan waa idin dhagaxaynaynaa waan idin ciqaabaynaa saddexdii rasuul ayaa ku dhaheen baasaysigiina idinku idinla jira oo markii la idin waaniyab miyaa baasaysi idin yimaada balse waxaa tihiin dad xadgudbay marka ayaa nin ka yimid duleedka magaalada isagoo soconaya wuxuuna yiri qoomkeeyo raaca saddexdan rasuul idiin soo diray raaca dadda idin warsanaynin ajar iyo mishaar waa dad lagu hanuuniyey waxay idinku yeerayaan wuxuuna sii raaciyey waxaan u caabudi ilaahay allihii i abuuray isagaan u laabanayaa qiyaamaha miyaan ka yeeshtaa ilaah sanamo ay wax iga taraynin xagga alleh ii shafeec qaadaynin qiyaamaha ina badbaadin karin markaa sida haddaa sameeyo waxaan ahay qof baadicad ku sugan aniga waxaan rumeeyey rabbigiina ay dhegaysta ninkii markuu intaas dhahay ayay dileen ninkii mu'minka ahaa ee taageersanaa saddexdii rasuul ayaa sidaas ku shahiiday ilaahay wuxuu ku geliyey jannada qabrigiisa warkiisa ayaa ilaahay noo soo guuriyey ninkii mu'minka ahaa ee la dilay isagoo leh shalay tahay qoomkayga hadday ogaan lahaayeen wuxuu ilaah igu dambi dhaafay uu igu beddelay igana dhigay mid ka mid ah kuwa la karaameeyey reerkii magaalada markay beeniyeen saddexdii rasuul ayaa soo dhowaatay xilligii la tirtiri lahaa ilaahayna kama soo dejinin cirka ciidan balse markii cadceedda soo bixaysa ayaa hal mar waxaa wada qabsaday magaaladii dadkii degnaa hal qayla qura deedna waxay noqdeen kuwa bakti ah shalayta waxay u sugnaatay addoommada hadduu yimaado rasuulba ku jeesjeeso miyaysan ogeyn in horay loo soo halaagay jiilal fara badan dhammaantoodna ay dib ugu soo noqon doonin adduunyada mar kale muhiim ma ahan in magacaaga la xuso waxaa mudan in raadkaada la reebto wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wassalaamu calaykum